xubno ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ee gobolka Togdheer oo kula hadlay qalabka warbaahinta xarunta xisbiga wadani ee magaalada Burco kuwaasoo muddo 5 maalmood ku xidhnaa saldhigga dhexe ee magaalada Burco isla markaana ay maanta sii deysay maxkamadda gobolka Togdheer ayaa u mahad celiyay maamulka maxkamadda gobolka iyo guud ahaan bahda garsoorka ee gobolka Togdheer taasoo ay ku tilmaameen inay ka jirto cadaalad buuxda sidoo kale waxay u mahad celiyeen xubnahani maamulka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo hogaamiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay sheegeen inay dadaal badan galiyeen soo deyntooda magacay waa Cabdullaahi Maxamed oo kamida saraakiisha xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxaan howlgal u tagnay shaqo degmada Qoyta 17 bisha halka waxaan noogu yimaano markaan howlgalkayga si nabadgelyo ku soo dhameysanay oo xafiiskii xisbiga joogna gudoomiyaha gobolka Maxamed Cali Saleebaan Ramax ciidankiisa waxa uu ku amray inay khasab nagu qabtaan oo ayna xidhaan ciidankaasi waxa ay yiraahdeen marka saraakiishan ma qaban kareyno calan meel laga taagay oo xisbigu leeyahay amar ma haysan wuxuu yiri amar barasaab iminka iigu qabta askartii wayna xidhay waxa lana soo saaray gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer gaarigiisa crownka Xasan Mataan moobiladeedii waxayna Ramax askartii buu dhiibay askartii horta way naga jajabisay moobiladeedii maxkamadda maanta lana keenay tan soo deysay waa maxkamadda waxaana aad ugu mahad celin gudoomiyaha maxkamadda gobolka Togdheer oo nin cadaalad ah waxaan halkan uga mahad celinaynaa mas'uuliyiinta xisbiga oo ugu sareeyo musharaxa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro hogaamiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan madaxda gobolka Togdheer aad baan uga mahad celinaa cid kasto oo xarigay teeda qayb li wax ka qaadatay magacaygu Axmed Xasan Maxamuud kana mid ah saraakiisha gobolka Togdheer ee xisbiga wadani waxaan ka baxnay halkan waxaan tagnay degmada Qoyta si aan u tagno xisbiga xafiisyada uu ku leeyahay ayaa waxa yimi gaariga gudoomiyaha gobolka iyo askartii saarneed markay noo yimaadeen isla markiiba amar buu ku bixiyay in la qabto anagoo ixtiraamkiisa waliba siinayna isaga dambi ma noo haynayno goobta dambi noogu sameeyo waana laga soo qaaday gaarigaas waxaa la soo saaray gudoomiyaha gobolka ee xisbiga kulmiye wato ee Xasan Mataan waana si faqalabayadna ay ahayd inuu gaadiid kale meesha ay joogeen waxaan halkan uga mahadnaqaynaa si aad iyo aad muhiim miisaan leh garsoorka gobolka Togdheer oo aad iyo aad cadaalad u muujiyay runtii iyo xeer ilaalintii labaduba arkayna in waxana lagu haystaa ay tahay caburin maxaad xisbigan u tahay kaliya ta Ali Baar Maxamed Boos TV Universal Pro